سؤال أدق إن نسويدينه ويا مرك سؤال أدق إن نسويدينه أو أي تهاي محاكينا يدل كنقول دجنو كينيا إنه تاجية هاي ماشي وتاجية محاكينا يشريطه إن مدحوينه إن اللوجو يري يدل كجيبوتي السجا يدمان مدحوينه ياشيا جيس كأفريقيا ودل كولاله هنا وشرفت له جيبوتي أي صوت بندقان إن billions of dollars أي جليين وحلا هذا free zone ويربين إنه تصان مدحوينه ياش أفريقيا وبول كجام وجوهرية مدحوينه إنه كجري مدحوينه السودان وكجري الوزراء إثيوبيا وكجري محاكيني إن دلالك الدرس كأنها أي علم دوفينا يان معها بديعه إن يدتكوا إذا أنتي وحبران الدنيا دوفينا يان محاكينا أرضي والبقى صوت صاران إنه كوا إنك كوالة تبديه شغالها أي هيستان إنه كوا ندامان نقاله هذو أي كون جبارمان أما كبلاي جبارمان iyadoo xoolaha ay haystaan annaga kuwa aan haysan ay ka yar yihiin maxaa keenay in qof walba dawladaha dariska markuu diyaarad raaco oo dunida tagaayo loola dhaqmo si idinka duwan oo idinka sida leeyna dhaqmo annaga sida noola dhaqmo ay ka duwan tahay kuwa kale maxaa keenay إن اللي يرده إنه يدومها راعان يبدأ كل عام أما أنك صد الله جالش إن لقيته حليو كودنا أنا ميل هذا أنتوا ده بدنا يجوعان وسؤالها للربين ليس ويدي حالة ده أنا إدين شيء جاي أو أضربتان إن هذا سويديسان هذا أضربتان كوي مستقبل كدل كان حكومي لها إن هذا سويديسان ويمو دلك قديسة محاكيني إن عند الحاد كنا هاي مستقبل كومد الصومالية محاكيني إن أنت نبضن أن قف عادية نقولنا قف عادية من نقول كرتين قف عادية وحن نقول كرا قف دلك يسهر عمري قف عادية وعي تاي قف صبح السوق على سوق شقي يستسحذا يا كوها الله ينسدلك أنت سكله هذا قف عادية نقول كأني إن أقبلنا إن فيرسنا إن عرورتنا ما هو يمكن ما بين جدت كمرك اللي نقول لايو كلية أنا هذا عاوقف بالوجود لي وده مكة المكرمة مكاران قف معها هو يسوع ماليه ضافر عرورة لا يلدري والجامعات كصوب بحي ولا باتنا مصدنا ما فرتن سنة دون ولا لا هيدل كان لسه لا يلدري ساميه صومالي وهرين لا عرك تجي لها يلدري دختركي مستقبل كصومالي ونكسنا الله يا لدري محان سيدا سؤالي وين محانو أقبلنا مركانو جيدنا دول النمدنا والطريق الصحة هتكسو عطو غلير إني كل حيثو محانو أقبلنا إذن كينا تهين قولاد الله استعمال لها إني اللي حيثو إذنكو انت هذا هان لهيدين ملكيلياشي قرنك مالين بوحا لإذين كينا شيء لغا هدلو شيء قاصد وحكو درستان وحاد قيب كان نقطين لغنك فردكو درركا او عنهين لغنك شقايا وحاد قيب كتين لغنك اللي صور دافي او الربعين لبدل دولد نمدو waxay tahay waxaanad soo bandhigteen inaad ka dhabaysaan dowladnimadu waxay tahay su'aalaha aad adagoon isweydiinayno inaad ka jawaabtaan dowladnimadu waxay tahay gudoomiye ku-xigeenku sida uu sheegay waxaan la dhisay idinka la idin dhisay aniga iyo isaga iyo qadiijo waan ka soconaa haddii lagu ciyaarayo idinka la idinkaga ciyaaraya hadday hagaagaan idinkay idin hagaagayaan hadafka dawladnimada marka
haddii aad ka shaqaynaysaan waa laydin tilmaamaya waa fududya kow waxay tahay in cidda milkiilayaasha dalka ka ah codkooda taladooda ay noqoto mid lagu khasban yahay in la dhageysto si loo dhageysto waa in milkiilayaashu ay fahmaan marka hore inay milkiilayaal yihiin markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabayn lahaayeen inay fahmaan macnaheedu waxay tahay waa inaad u abaabulan tihiin si qarannimo ah waa inaad u abaabulan tihiin si mustaqbalka ku salaysan waa inaad u abaabulan tihiin si aad madaxweyne farmaajo u dhihi kartaan dariiqa dalka aad ku hogaaminayso waa khalada bidix u leexi waa inaad abaabulan tihiin qaab aad wasiirada dowladda ku jira aad ula xisaabtami kartaan si halkaas la soo gaaro marka waxaan idinku caawinaynaa inaan waddankan u bedelno in qabiilka looga guuro asxaab siyaasadeed in xisbiye la sameeyo in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan waxaan ka shaqaynaynaa in awooddii gacanta xoogaa yar ay ku haysatay idinka laydin soo celiyo laakiin waa xanuun ogaada kuwa hadda talada gacanta ku haysta ma yeelayaan idinka inay idin siiyaan miyaa u malaynaysaan in macno daro laydinkugu keenayo maya waa inaad hurdada ka kacdaan oo aad dowladnimo isu abaabushaan muxuu idinkaga dhintay allah u naxariistee wiilkii dhallinyarada ee degmada wardhigley u qiiminayay dadka masaakiimiinta Afrika haddii aadan qiimeynaynin noloshiina maxaa dhalinyaro ka tihiin haddii wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maalinba la dilaayo iyagoo dowladnimo u adeegaya aad ka soo qaadaan qof dhintay aadan ula xisaabtamaynin haliyay idinka baxay sidee baad rabtaan inaad dalka idinku gacanta ugu dhigtaan waan qabiilka lagu bedelaa asxaab siyaasadeed waa in codadka ay bixiyaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa in dalkoo dhan laga codeeyaa waa in dawlad ay xakunto shacabka Soomaaliyeed la keenaa waa in madaxda mustaqbalku ay ku yimaadaan mustaqbalka rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waa in idinku awoodda ay yeelataan si aad u yeelataanna inta laga shaqeynayo shaqooyinkaas oo jidkeeda lagu jiro waa inaad hurdada ka toostaan adduunyadu waxay noola dhaqantaa sidii hore si ka duwan meel walbo aan tagno waana la ciseeyaa waxaana loo ciseeyaa inaan ahayn dawlad wax loo yeeriyo nalooma sheego go'aanka ummadda Soomaaliyeed aan u gaarayna annaga go'aansana go'aankaan ummadda Soomaaliyeed u gaarayna isgoyska aan marayno marka waxaan rabaa dhalinyaro inaan caawa mar kale idinku soo celiyo ma laga shaqayn karo haddii indhihiinu xiran yihiin ma laga shaqayn karo haddaad tihiin wiilal iyo gabdho caadi ah ma laga shaqayn karo haddii aad tihiin wiilal iyo gabdho dhexdhexaad ka ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ma laga shaqayn karo haddaad tihiin kuwo qola dangaara leh ay Facebook ka hagtaan ma laga shaqayn karo haddii aad leedihiin aragti kooban oo aadan lahaynin aragti fog ma laga shaqayn karo haddaadan fahminina 30 sano nagu filan inaanay qabyaaladii wax tarayn ma laga shaqayn karo haddii aad